بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishu ay tahay 28 Febraayo waxaan u nimid gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo aniga iyo ciidankii daraawiishta oo na weheliyo taliye-xigeenka ciidanka booliiska Puntland General Cismaan Xasan Cawke waxaan u nimid hawlgal ah ku soo celinta amniga gobolka hawlgalkaas oo lagu magac daray Aisha maxay galbatay maxay sababat waa gabar 12 jir ah oo 7 kubsatay ka bacdina ay dishay wax gobolka Soomaaliya ma ahan arintaas waxa ka dambeeya dad ka soo horjeeda amniga gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo waxaan u nimid inaanu dadka helno oo qabanno oo gacan ku soo dhigno magaaladan amnigeeda ku soo celinna annagoo kaashanayna ciidamadii naga soo horeeyay gudoomiyaha gobolka iyo maayarka magaalada iyo shacabka reer Gaalkacyood waxaan u diyaar garoobaynaa maanta laga bilaabo inaanu sameeyno hawlgal waxaan la socodsiinayaa ciyaalka la qaban doono ama dadka dhib geysto oo la qaban doono waalidka daba socda inay ka haraan taliye-xigeenka ciidanka booliiska maayarka ciidanka waxa amran yihiin odagii ka daba yimaada nabadoon ka daba yimaada in la qabta asaga laftigiisa oo xabsiga la dhigo arinta aad loogu diyaar garoobo ha laga digtoonaado waalidiinta waxaan leenahay carruurtiina marka hore cishada masaajid buu ku jiray xaafid quraan buu ahaa guriga kama bixi jirin yeeli mayno liis baan wadnaa liiskaas baan ku saarinaa magaalada wixii ka dhacay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh